واتحنا بوغاني سويالka suubanaha in kaga hadlayna siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam qaybtiisii labaad la socosho wacan awoodihii u talinayay dunida sidaan soo sheegnay waxaa dunida ka jiray dulmi iyo is awood sheegasho waxaana jiray dawlado xoog badan oo ku dhisnaa dulmi iyo adoonsi waxay ku dhisan yihiin ahaa ismaquunan iyo in cid ay ka tamar badan yihiin ay muuraduugaan dawladahaas waxay kala ahaayeen dawladii Roman Empire waxay ahayd dawlad aad u salbalaaran oo Allah subxaanahu wa ta'ala ku xusay suurad quraanka kamid ah awoodda dawladaas iyo in laga guuleysan doono balse ay mar kale soo rogaal celin doonaan guushana ay dib u hanan doonaan alif lam mim غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون waxay ku tusinaysaa mucjisada quraanka waxa laga adkaaday Room dhulkii dhawaa intii laga adkaaday kadibna way adkaan Roomaanku waxay ahaayeen awood baaxad leh waxayna ka talinayeen 75% qaaradda Yurub iyo waqooyiga Afrika Roomaanka laba dawladood ayay kala ahaayeen waxaana la kala oran jiray Roomaanka galbeed iyo Roomaanka bari tan galbeed waxa xarun u ahayd magaalada Roma ee hadda caasimada u ah dalka Talyaaniga caqiidaduna waxay ahayd Catholic soo saaridda suubanaha sallallahu alayhi wasallam ka hor ayay burburtay dawladii Roomaanka galbeed midda bariga waxa caasimad u ahayd Constantinople oo hadda loo yaqaan Istanbul waana dawladii uu boqorka ka ahaa Herakle caqiidaduna waxay ahayd Orthodox labadaas dawladood waxa dhexmari jiray dagaalo aad loogu hooto oo ay ku nafwaayaan kumanaan ka kala tirsan dagaalyahanada labadaas dawladood dagaalkooduna wuxuu ku saleysnaa kala caqiido duwanaanta nasaarada dhexdooda ah sidoo kalena wuxuu dadaalkooda la xiriiray hardanka talada iyo maamulka dunida